engineer warunta wax kastoo horta ama fertilizer ha ahaado ama pesticide ha ahaado haddaanan sida saxda ah oo optimumka ah oo loogu talagalay haddaan loo isticmaalayn laba caqabadoodba ama dhowr caqabadoodba ka imaan karta kow in chemicals aanan geedkiina ka faa'iidaysanin uu horta hawadii environmentii lagu sii daayo geedka laftiisana uusan ka sidii saxda ah uga faa'iidaysanin ugu dambeynna dadkii ay caafimaad darro iyo khataro ay ku keento baa maalin hadda ka hor intaa sheekaysanaan dhahay beeraha iyo waxaasan ka shaqeeya markaas wuxuu dhahay miyo sun baan siinaysaan simple taas waxay u tarjumaysaa in dadka ka shaqeynaya beeraha aysan wacyi badan u haysanin dalagan ama cayaankan ay la dagaalamayaan ay rabaan inay ka adkaadaan dhibaatada ku hayso see loola dagaalamaa sometimes hadii laga badiya xataa resistance abuuray waa taqaanaayo in wixii lala dagaalamayay pestiski ay waxan la qabsadaan ugu dambeyn si kastoo dooska u badiso ay ku dhahaan waxan aysan dilin marka taa maxay dib ugu laabanaya in wacyigelinta iyo tababarada iyo maxaan ku raadaay kor loo qaado waxaan isleeyahay meeshan oo kale waxaa aad uga maqan waxaan kasoo geli karnaa doorka jaamacadaha oo kale macaahidda cilmi baarista oo kale wasaaradda beeraha oo kale oo macaahidka cilmi baaris waa in ay soo introduce garaysaa si laisku xiro howlahan u baahan daacad keligeed ma ka shaqayn karto private sector iyo companies keligood ma ka shaqayn karaan in waxaan stakeholder tira badan soo wada galaan oo dowladuna policies-kii iyo protocolladii loogu talagalay ay dejiso jaamacaduhuna ku dhaqmaan beeraleydan la siiyo taasoo kale hal mar isku xirkaas markaad fiiriso okay horta sumaha marka pesticide markaan dhahayno markaan fiirino waxa loo yaqaano standard caalamka waxay leeyihiin wax xad la isticmaalo laba shay laguna cabira mid waxa loo yaqaano waxa waaye pH ayaa loo soo gaabiyey waxaa laga wadaa beer harvest intervalka sumankay ku qoran yihiin caagid korkoodii ku qoran yihiin waa gurashada ka hor waa beer harvest markaa dheen waxa waa gurashada ka hor waa sunta markaa ku buufiso goorma la guranaa 7 maalmood 10 maalmood 14 maalmood hal maalmood saacad waqti ku qoran oo meesha raacsan qaar kalena waxa lagu cabiro caalamka ku cabiraan markii dalag aad dhoofinaysid tay dhoorka ama qofka wadanka aad u dhoofinaysid waxay leeyihiin hay'ad tay dhoor ah waxay ka fiirnaa waxa loo yaqaano maximum reduce limited waxa loo yaqaano taasna ay tahay marka suntan geedkan lagu soo buufiyay ilaa xad intay geedka korkiisa ay saaran tahay maxaa yeelay waxa markaa dhoofinaysid wadanka ay galayaan wuxuu u baahan yahay geed caafimaad leh miro caafimaad leh waxa u dhoofinaysid inay ahaadaan wax tayo leh marka wuxuu ka baraa marka isla markiiba alaabtaada markii ay tagto laawo u qaadaa wuxuu ka qaadaa example ama tusaalooyin uu ka qaadaa laawgeena wuxuu ogaanaa marka sunta xadka ilaa intee ay gaarsiisan tahay waxaa jira standard lagu talagalay artikaladii iyo waxyaabaha ay qoreen haddii ay dhaafsan tahay waxaa lagu dhahaa marka waxaa dhaaftay food unsafety waaye waxaan lowga ama sharcigeena ma qabo dib u celi marka taas idina waxay dhibaato ku noqonayaan marka dadka wadanka wax soo saarayo in wixii dib loo soo celiyo wadankii laga dhoofi waayo tan labaad doorka jaamacadaha markaan fiirino ka jaamacad Zamzam ahaan markaan fiirino ardayda markii la tababarayo ama ardayda wax la siinayo waxa aan ku tababarno waxa waaye sunta yarta kow inay asi dhibaato u gaarsiinayso laba markuu isticmaalayo inuu isticmaalo gloves face mask glasseska okyaalihii iyo protect glasseska ama dharkii lagu talagalay oo waterproof inuu isticmaalo kadibna reedku isticmaalayo mar walba xisooyinka ku bixinaa casharada ku bixinaa ardayna si practice ahaan waa loo tusaa waxa la hayaa caag intaas ku qoran intaan ku shubiya intaas jaamacadda kaligeed kuma filna maxaa yeelay jaamacadda waxay soo saari kartaa 1,000 arday waxay soo saari kartaa 100 arday laakiin markii la fiiriyo jaamacadaha kale ama markii la fiiriyo macaahidada kale ama wasaaradda beeraha markii la fiiriyo haddii beeraleyda kale tababar la siiyo oo la dhaho cilmi baaris fiican loo soo biyo la dhaho intaas isticmaala intaasna u hormariya intaas waxaan yeelay lagu tababaro beeraleyda ama lagu tababaro hay'adihii oo waxbarashada qaabilsanay meesha waxaa imaanaysa marka in la isticmaalo sun loona isticmaalo xadka lagu talagalay oo xad ka badan la isticmaalin
oo la helana marka bulshadii ama dadkii customerka lahaa loo geey lahayna ay helaan wax suntii ka dhamayst ka baxsan oo caafimaad leh oo waxtar u leh ayagana. taas waxay noqonaysaa marka kaliya company kuma eka, jaamacad kuma eka, wasaarad kuma eka. waxay noqonaysaa marka in la suubiyo waxa loo yaqaan collaboration, in la isla kaashto. haddii wasaaradii ay keento ninkii cilmi baaris ah, jaamacaddii ay keento dhulkii beerihii, kambaniyadiina ay keenaan sumakii la isticmaal lahaa, meesha waxaa imaanaya marka in wax si sax ah bulshada loo gaarsiiyo marka.